Assalaamu calaykum. Sanadkii 1982, 7 qofood ayaa geeriyooday kadib markay isticmaaleen kiniin xanuun baabi'iye ah oo lagu magacaabo Tylenol. 7 qofood waxay ku geeriyoodeen magaalada Chicago iyo agagaaraheeda. Dhacdadaasna waxay noqotay dhacdo cabsi weyn ka dhalay Mareykanka oo dhan kadib markii ay dadku ogaadeen in qaar ka mid ah kiniiniyada ay isticmaalaan ee xanuun baabi'iyeyaasha ah, gaar ahaan nooca Tylenol, ay sumaysan yihiin oo ay ku jirto sun. Dambiibaarayaashu markay isku dayeen qofkii sumeeyey kiniiniyada inay soo qabtaanna waa ay ku adkaatay. Ilaa iyo maantana ma yaqaanaan qofkii dhabta ahaa ee ka dambeeyey dhacdadan. Muuqaalka maanta insha Allah waxaan kaga hadli doonaa dilalkii Tylenol. 29 bishii Sebtembar 1982, maalin Arbaco ah, nin lagu magacaabo Adam Janes oo 27 sano jir ahaa wuxuu ka shaqayn jiray boostada. Wuxuu geey jiray boostooyinka. Maalinkaas ma uusan aadin shaqada sababtoo ah waa uu xanuunsanaa. Kadib wuxuu isticmaalay kiniin xanuun baabi'iye ah oo lagu magacaabo Tylenol. Wax yar kadibna wuxuu ku dhacay dhulka. Kadib xaaskiisii waxay aragtay in uu miir beelay. Kadibna waxay la xiriirtay gargaarka degdega. Waxaa loo soo diray ambulance waxaana la geeyay cisbitaal. Meesha ay dhacdadan ka dhacday waxaa lagu magacaabaa Arlington Heights. Waxay ka tirsan tahay magaalada Chicago, gobolka Illinois, waddanka Mareykanka. Adam markii la geeyay cisbitaalka wax yar kadib waa uu geeriyooday. Wuxuuna u geeriyooday wadne istaag oo wadnaha ayaa istaagay sida ay dhakhaatiirtu sheegeen. Intaa kadib qoyskiisii waxay ku soo laabteen guriga. Kadibna waxay isugu imaadeen guriga si ay uga tashadaan sidii meydkiisa loo duugi lahaa, si ay u qabanqaabiyaan duugta. Markii ay guriga yimideen, walaalkiis oo lagu magacaabo Stanley Janes ayaa wuxuu u dirsaday xaaskiisa oo lagu magacaabo Teresa inay u keento xanuun baabi'iye si xanuun dhabarka ka hayay iyo madaxa, maadaama walaalkiis dhimashadiisa uu ka naxay uu isaga baabi'iyo. Kadibna waxay u keentay Tylenol. Wuxuu ka cunay 2 xabo, Teresana waxay ka cuntay 2 xabo. Wax yar kadib Stanley wuxuu ka dhacay kursiga, kadibna wuxuu ku dhacay dhulka. Qoyskii waxay la xiriireen gargaarka degdega. Markii ay imaadeen ambalaaska iyo qolada gargaarka degdega, waxay arkeen Stanley in calaamadaha ka muuqda ay la mid yihiin calaamadihii ka muuqda walaalkiis Adam. Intaa kadib waxay isku dayeen inay badbaadiyaan oo ay gargaar u fidiyaan inta uu guriga dhex yaallo. Intii ay isku dayeen inay gargaar u fidiyaan, haddana waxaa dhulka ku dhacay Teresa. Kadib labadoodiba waa ay qaadeen waxayna geeyeen cisbitaalka. Cisbitaalka markii la geeyay, Stanley Janes waa uu geeriyooday. Isagana wuxuu ahaa 25 sano jir. Teresa iyadu waxay gashay koomo, waxayna ahayd 20 sano jir. Dhakhtarkii wuxuu fahmi waayey waxa sababay dhacdadan. Markii hore waxay moodayeen inay cunto ku sumoobeen. Kadib wuxuu u soo diray kalkaaliyaashii guriga. Kadibna wuxuu ku yiri waxyaabihii ay isticmaaleen cuntooyinkii iyo wixii la midka ah soo qaada dhammaantood oo guriga baara si aan baaritaan ugu samayno. Laga yaabay inay cuntada ku sumoobeen. Qoyska inta kalena wuxuu ku yiri ha ka tegin cisbitaalka si haddii qof idin ka mid ah ay wax ku soo baxaan si degdeg gargaar loogu fidiyo. Guriga markii ay tageen oo ay baareen, mid ka mid ah kalkaaliyaasha ayaa waxay wareysatay xaaskii Adam. Kadibna waxay u sheegtay in Adam subaxaas uusan shaqo tegin maadaama uu xanuunsanaa. Markii la gaaray 5 saac ama 11 subaxnimo ayuu wuxuu ilmihiisa ka soo waday iskuulka. Kadib wuxuu soo maray dukaan lagu magacaabo Jewels oo lagu iibiyo daawooyinka iyo alaabaha kale. Kadibna wuxuu ka soo iibsaday Tylenol. Guriga ayuu ku soo laabtay, waa uu qadeeyay. Markii uu qadeeyay kadib ayuu wuxuu isticmaalay kiniiniga Tylenol. Kadibna waa uu sooxay. Waxaana loo qaaday cisbitaalka. Xilliga la qaaday waxay ahayd 3 galabnimo ama 9 saac oo galabnimo. Sidoo kale waxay u sheegtay in Stanley iyo Teresa iyagana ay isticmaaleen Tylenol. Kadib kalkaalisada waxay baartay guriga waxayna ka soo heshay caagii kiniiniga Tylenol. Kadibna waa ay tiriday. Waxayna aragtay inay ka maqan yihiin 6 xabo oo kaliya. Kadibna waa ay soo qaaday waxay keentay cisbitaalka. Cisbitaalka markay yimideen waxay u timid dambiibaarayaasha iyo booliska iyo sidoo kale dhakhaatiirtii oo ku jira shir. Gabadhii kalkaalisada ahayd markii ay u timid waxay ku tiri dadkan waxa keenaya inay dhintaan waa kiniiniga Tylenol. Sababtoo ah waxa kaliya ay ka dhaxeeya ay sameeyeen maanta waa in saddexdoodaba ay cuneen Tylenol. Markii hore ma aysan aaminin, waa ay ku qosqosleen. Waxay ku yiraahdeen ma ahan Tylenolka. Tylenolku waa caadi, wax dhiba ma qabo.
intaa kadib dhakhtarku wuxuu ogaaday in subaxii hore sidoo kale ay geeriyootay gabar kale oo iyadana ay u geeriyootay kadib markay isticmaashay Tylenol. Mary Killerman waxay ahayd 12 sano jir. Subaxii 29 September waxaa ku dhacay hergeb oo ay xanuunsatay. Kadibna iskoolkii ma aysan aadin oo waa iska joogtay. Aabaheed ayaa wuxuu siiyay kaniiniga Tylenol xanuun baabi'iyaha. wax yar kadibna waa ay dhacday. Kadibna wuxuu la xiriiray gargaarka degdega waana la soo qaaday Mary waxaana la geeyay isbitaalka. Laakiin wax yar kadib waa ay geeriyootay. Iyaduna waxay ku geeriyootay meel lagu magacaabo Elk Grove oo ku taala magaalada Chicago. intaa kadib dhakhtarku wuxuu arkay in dadkan waxa ka dhaxeeya ay yihiin kaliya Tylenol wuxuuna codsaday inay baaritaan ku sameeyaan dhiigga dadkan oo dhan. intaa kadib waxay baaritaan ku sameeyeen dhiigga Adam Stanley Teresa iyo gabadhii yareed ee Mary Killerman waxayna ka heleen dhiiggooda dhammaantood maadada cyanide waa maado sun ah oo si degdeg ah qofka ugu dhima karo. waxayna ogaadeen in maadada cyanide-ka meesha ay kaga timid ay tahay daawadii ay isticmaaleen ee Tylenol. intaa kadib waxay ogaadeen in gabadhii kalkaalisada ay ka saxneed. kadibna waxay ku dhawaaqeen booliska magaalada Chicago inaan la isticmaalin kaniiniga Tylenol. waxayna amreen dadka oo dhan haddii ay hayaan Tylenol inay geeyaan xarunta ugu dhow ee booliska ay leeyihiin. These deaths have been associated with the presence of cyanide in 2 containers of extra-strength Tylenol. sidoo kale waxay amreen dukaamada oo dhan iyo farmashiyaasha inaysan iibi karin Tylenol. waxayna ku amreen dhammaantood inay keenaan. sidoo kale waxay bilaabeen boolisku inay tagaan guri walba oo ay gargaraacaan oo ay dadka ku yiraahdaan wixii Tylenol ah hada keena. markii hore waxay doonayeen dabcan inay yiraahdeen ka takhalusa oo iska tuura, laakiin haddana waxay go'aansadeen inay ku yiraahdaan keena. sababtoo haddii ay dadku iska tuuraan waxaa laga yaabaa in caddayn ay meesha ku dhunto. waxay doonayeen inay baaraan kaniiniyada oo dhan si ay u ogaadaan inay kaniiniyadu sumaysan yihiin iyaga dhan. markii hore waxay moodayeen in kaniiniyada dhan ay sumaysan yihiin oo qalad ka dhacay shirkadii samayday oo lagu magacaabo J&J Johnson & Johnson in qalad ka dhacay dartiis ay u sumaysan yihiin. kadib waxay soo ururiyeen daawooyinkii. maalmihii xigay oo dhanna waxay ku mashquulsanaayeen inay daawooyinka soo ururiyaan. isla maalinkii 29 September haweeney lagu magacaabo Mary Rainer oo jirtay 27 sano ayaa waxay isticmaashay kaniiniga Tylenol. kadibna waxay ku dhacday gurigeeda waana ay ku dhex geeriyootay. kadibna waxaa la geeyay isbitaalka. iyadana sidoo kale waxaa laga helay dhiiggeeda maadada cyanide. iyadana waxay u geeriyootay Tylenol dartiis. waxayna ahayd qofkii shanaad ee u dhinta. waxayna ku dhimatay meel lagu magacaabo Winfield. sidoo kale haweeney kale oo lagu magacaabo Mary McFarland oo 31 sano jir ahayd iyadana waxay joogtay goobteeda shaqada. kadib waxay gashay musqusha waxayna cuntay Tylenol. markii ay ka soo baxday ayay dhulka ku dhacday. kadib saaxiibadeed waxay la xiriireen gargaarka degdega. markii la qaaday Mary ee la geeyay isbitaalka iyadana waa ay geeriyootay. maalinkii xigay gabadhii Stanley uu qabay ee koomada ku jirtay Teresa iyadana waa ay geeriyootay. sidaana waxay ku noqdeen dadka guud ee u geeriyooday Tylenol 6 qofood. booliska iyagu daawooyinkii ay soo ururiyeen ay dadka ka soo ururiyeen waxay bilaabeen inay baaritaan ku sameeyaan oo ay shaybaarka u diraan bal inay ku jirto maadada cyanide dhammaantood iyo in kale, laakiin waa ay ka waayeen. maalinkii labaad oo keliya oo ay soo ururiyeen daawada waxay baareen 39,000 oo xabo oo ah kaniiniga Tylenol. hal mid oo ka midana waa ay ka waayeen cyanide. ugu dambeyn waxay ogaadeen boolisku in kaniiniyada dhan aysan sumaysnayn oo qaar ka mid ay sumaysan yihiin, laakiin sidaas oo ay tahay baaritaankii waa ay sii wadeen. 2 Oktoobar waxay heleen meyd cusub. waxay heleen meydka gabar lagu magacaabo Paula Prince oo iyadana u geeriyootay Tylenol. Paula Prince waxay ahayd 35 sano jir. waxay u shaqayn jirtay shirkad lagu magacaabo United Airlines waxayna ka ahayd hostess, gabdhaha dadka soo dhaweeya diyaaradaha ee u adeega ayay ahayd. maalinkii 29 September waxay ka timid safar waxayna ka timid magaalada Las Vegas waxayna ku soo laabatay magaalada Chicago. markii ay soo laabatay kadib waxay aaday gurigeeda. intii ay guriga u sii socotay waxay sii martay dukaan lagu magacaabo Walgreens. kadibna waxay ka iibsatay xanuun baabiyaha Tylenol. kadibna waxay tagtay gurigeeda waxay isticmaashay Tylenolkii. kadibna waxay ku dhex dhimatay guriga sababtoo ah Tylenolka ay cuntay wuxuu ahaa midkii sumaysnaa. maadaama aysan qof la deganayn ma aysan jirin qof ogaatay inay dhimatay iyo sidoo kale cid gargaar u fididay sababtoo ah waxay ahayd keligeed. iyadana fursad uma aysan helin inay gargaar degdeg dalbato. waxyaabaha la yaab kale ee cyanide-ka lagu daray Tylenolka uu lahaa waxay ahayd suntan sun qofka si degdeg ku dilayda iyadoo aysan calaamado ka muuqan.
qofka madax xanuun iyo matag iyo waxba kama aysan muuqanayn. hal mar isagoo iska jooga oo caafimaad qaba ayuu qofka dhulka ku dhacayay, kadibna toos ayuu u geeriyoonayay. maalinkii 2 Oktoobar, gabar ay saaxiib ahaayeen oo isla shaqay jireen ayaa waxay tagtay xarunta shirkadda, kadibna waxay ka soo qaadatay mushaarkeeda. mushaarkana waxay ku qaadan jireen kaash. markii ay soo qaadatay keeda, waxay aragtay bashqadii lacagta ee Paula oo taala. kadibna waxay weydiisay gabadhii soo dhaweynta, Paula ma aysan soo doonan miya mushaarkeeda. gabadhii qaybta soo dhaweynta joogtana waxay u sheegtay in 2 maalin aysan Paula soo shaqo gelin. kadib waxay wacday walaasheed oo lagu magacaabo Caroline, kadibna waxay weydiisay walaasheed maxaa ku dhacay, maxay u soo doonan weyday mushaarkeeda, maxayse u soo shaqo tagi weyday. Caroline waxay u sheegtay in markii ugu dambeysay ee walaasheed wada hadlaan ay ahayd Arbacadii 29 Sebtembar. kadib waxay tageen gurigeeda labadooda, gabadhii la shaqay jirtay iyo walaasheed. albaabka ayayna u garaaceen, laakiin Paula waa ay ka furi weyday albaabka. kadibna walaasheed ayaa waxay soo qaadatay furo isbeera oo ay haysatay, guriga ayayna fureen. markii ay fureen, waxay ugu dhex tageen meydka Paula. kadibna waxay la xiriireen booliska. booliskuna sidaa ayay ku heleen meydkeeda. Paula Prince waxay ahayd qofka ugu da'da weyn dadkii u geeriyooday kaniiniga Tylenol, waxayna ahayd qofkii 7aad ahaana qofkii ugu dambeeyay ee u geeriyooday Tylenol. intaa kadib, boolisku waxay baaritaan ku sameeyeen 2 milyan oo xabo oo ah kaniiniga Tylenol, dhammaantoodna waa ay ka waayeen cyanide. sidaa ugu dambeyn waxay ku xaqiiqsadeen in qaar ka mid a daawada la sumeeyey oo qof uu sumeeyey oo aysan ahayn qalad ka dhacay shirkadda Johnson & Johnson. kadibna waxay go'aansadeen inay diiradda saaraan dukaamadii ay dadkii u geeriyooday daawadan kasoo iibsadeen daawada, sida Jewels oo ku yaala Arlington Heights oo ah dukaankii Adam iyo Stanley iyo Teresa daawadii ay isticmaaleen ay u geeriyoodeen laga soo iibiyey. markii ay tageen Jewels iyo sidoo kale Walgreen oo ah kii Paula ay kasoo iibsatay iyo kuwii la midka ahaa, waxay dhammaantood ka soo qaadeen daawooyinkii ay hayeen iyo daawooyinkii kaydka u yaalay. sidoo kale waxay baaritaan ku sameeyeen shaqaalihii u shaqay jiray dukaamadan, aqoonsiyadooda iyo sidoo taariikhahooda, haddii dambiyo hore u geysan jireen iyo haddii kale. 2 qof ayaana waxay u noqdeen booliska. 2 qof ay ka shakisan yihiin ee ugu horeeya. 2 qofna waxay ka shaqay jireen dukaanka Jewels. midka koowaad waxaa lagu magacaabaa Roger Arnold. Arnold wuxuu ahaa 48 sano jir, sidoo kale wuxuu ka shaqay jiray baqaarka dukaanka Jewels. Arnold maadaama ay ka shakiyeen, waxay baareen gurigiisa. markii ay tageen, waxay ka soo heleen maadada cyanide oo ah maadadii loo isticmaalay in lagu sumeeyo daawada. sidoo kale waxay ka soo heleen hub, qori iyo 4 bistooladood ayay ka soo heleen. sidoo kale waxay ka soo heleen buugaag ka sheekaynaya sida loo sameeyo walxaha qarxa iyo sida loo sameeyo sunta. intaa kadib, Arnold waxay ka codsadeen inay marayaan tijaabo qalabka runta iyo beenta sheega, kadibna waa uu ka diiday. intaa kadib, Arnold waa la xiray. qofka labaad wuxuu ahaa nin lagu magacaabo Kevin Masterson. Kevin isaga sidoo kale waxay ka heleen cyanide. isagana wuxuu u shaqay jiray Jewels. isaga sababta ay kaga shakiyeen waxay ahayd sababtoo ah isaga iyo xaaskiisa ayaa waxay isku dhaceen dukaanka Jewels, kadibna waa laga mamnuucay xaaskiisa. waxay is yiraahdeen laga yaabee in xaaskiisa darteed uu doonayo inuu dukaanka sumcadiisa dhulka la galo, kadibna uu sumeeyey daawada. markii ay baaritaan ku sameeyeen labadoodaba, wax dambiya waa ay ku waayeen. ugu dambeynna Arnold wuxuu ogolaaday inuu maro tijaabada runta iyo beenta, waana uu ka gudbay. kadibna waa la iska sii daayay labadoodaba. 19 Oktoobar 1982, wargeys lagu magacaabo Chicago Tribune ayaa waxay ku soo daabaceen safxadda koowaad ee joornaalka subaxaas sawirka waxaa qaaday kaamirad ku dhaganeed mid ka mid a dukaamadii dadkii u geeriyooday daawada ay ka iibsadeen daawada. wuxuuna ahaa dukaan lagu magacaabo Walgreen, waana dukaankii ay ka iibsatay Paula Prince daawada. sawirka waxaa ka muuqda Paula oo iibsanayda daawada. sidoo kale waxaa ka dhex muuqda nin taagan meel ku toosan oo fiirinaya. waxayna ka shakiyeen in ninkaas uu ahaa ninkii ka dambeeyey sumaynta daawooyinka. dhowr maalin kadib, mar kale waxaa dib loo soo qabtay Roger Arnold. sababta markaan loo soo qabtay waxay ahayd sababta uu wuxuu dilay nin. sababta uu dilayna waxay ahayd Roger markii koowaad ee laga shakinayay. sababta looga shakiyay waxay ahayd nin baar ka shaqeeya ayuu wuxuu ku yiri waxaan jeclahay kiimikooyinka. ninkaas baarka ka shaqay jirana Arnold wuu necbaa. kadib wuxuu la xiriiray booliska, wuxuuna ku yiri Arnold waa mid ka mid ah dadka laga yaabo
inay dilka geysteen. Sidoo kale wuxuu u sheegay inuu ka shaqeeyo Jewels oo ah dukaankii daawooyinka laga soo iibsaday. Sidaa darteed ayuu Arnold ku noqday qof ay ka shakisan yihiin. Kadibna waxay baareen gurigiisa waxayna ka soo heleen waxyaabihii aan idiin soo sheegay. Arnold intaa waa uu ogaa. Markii la soo daayay oo kiiska uu ka soo dhamaaday, wuxuu go'aansaday inuu ninkii ka arguto. Kadibna wuxuu isku dayay inuu ninka dilo. Laakiin ninkii uu rabay inuu dilo ma uusan dilin, ee wuxuu dilay mid kale oo uu ku qalday. Kadib Arnold dib ayaa loo soo qabtay. Mar kale ayaa la maxkamadeeyay, waxaana lagu xukumay xabsi daa'im. Intaa kadib, laba wargeys oo lagu kala magacaabo Sun Times iyo Chicago Tribune ayaa waxay soo daabaceen warqad. Warqadaasna waxaa loo diray shirkaddii daawada sameeyay J&J. Warqadda waxay ahayd warqad handadaada, waxaana ku qoreed: haddii aad rabtaan inay joogsadaan dilalka, ku dira $1 milyan. Kadibna wuxuu soo raaciyay account bangi. Intaa kadib, boolisku waxay warqadii ka soo qaateen shirkadda Johnson & Johnson waxayna ku sameeyeen baaritaan. Markii ay baareen, markii koowaad waxay baareen bangiga. Bangi account-ka waxay ogaadeen inay leedahay shirkad lagu magacaabo Like City Travels. Waxay ahayd shirkad duulimaad oo la xiray. Shirkadaas ayaa iska lahayd. Kadibna waxay raadiyeen ninkii shirkadda madaxda u ahaa. Ninka madaxda u ahaa waxaa lagu magacaabaa Miller McCahey. Kadib oo ay soo heleen, waxayna weydiiyeen warqadan akoonkiisa cidda ku qortay. Wuxuu u sheegay in ay ku qoreen nin iyo naag isqaba oo lagu magacaabo Robert Richardson iyo Nancy Richardson. Nancy ayaana waxay ka shaqayn jirtay shirkadiisa. Intaa kadib, boolisku waxay raadiyeen labada qofood markii ay raadiyeen waa ay waayeen. Kadibna waxay ka sii daayeen warbaahinta in la raadinayo loogana shakisan yahay kiiska inay ka dambeeyeen labadaas qofood, Robert Richardson iyo Nancy Richardson. Muddo yar kadib markii ay TV-ga ka sii daayeen, waxay ogaadeen boolisku in magacyada Robert iyo Nancy ay yihiin magacyo boga oo aan waxba ka jirin. Magacyadooda dhabta ah waxay ahaayeen James Lewis iyo Liam Lewis. Siday ku ogaadeen waa u tagi doonaa. Markii ay ogaadeen magacyadooda, waxay bilaabeen inay raadiyaan, laakiin waa ay waayeen. Dhowr maalin kadib, James ayaa wuxuu warqad u soo diray booliska, wuxuuna ugu sheegay inuusan dambiile ahayn, waxna aysan ka gelin dilalka isagana uusan geysan. Kadib waxay ku yiraahdeen haddii aad run sheegaydo, noo imow oo tag xarunta booliska kuugu dhow, waa la xaqiijin inaadan dilalka geysan, kadibna waa la iska kaadaynaa. Sidoo kale waxay isbarbar dhigeen masawirka James iyo masawirka ninkii ka dhex muuqday sawirkii ay qaaday kaameradii ku taalay dukaanka lagu magacaabo Walgreen, dukaankii Paula ay daawada ka iibsatay. Ninkii ka dhex muuqday iyo masawirkiisu waa isku ekaayeen. Inkastoo aysan xaqiijin 100%, laakiin 99% waxay hubeen inay isku mid yihiin. Intaa kadib, boolisku waxay ogaadeen markii ay baareen taariikhdiisii hore, James in hadda kahor uu ku eedeysnaa inuu dil geystay. magaalada Kansas City ee gobolka Missouri 1978 waxaa la waayay nin lagu magacaabo Raymond West, waxaana waayay saaxiibkiis oo lagu magacaabo Charles. Markii uu waayay dhowr maalin, wuxuu tagay gurigiisa. Guriga markii uu tagay, wuxuu arkay inuu guriga xiran yahay, korkana uu ka qufulan yahay. Sidoo kale waxaa ku dhaganeed warqad ay ku qoran tahay Mr. West wuxuu aaday Ozark kale waa meel magaceed ma aqaano. Kadibna waxaa ku hoos qoraa nagala soo xiriir number, waxaana ku saxiixnaa warqadda James Lewis. James Lewisna wuxuu ahaa Raymond West oo 72 jir ah xilligaas. Ninka canshuurta wuxuu ahaa ninka canshuurta ka dhiibay, sababtoo wuxuu lahaa shirkad canshuuraha iyo waxyaabahaas ka shaqeeya. Isaga iyo xaaskiisa ayaa lahaa. Intaa kadib ninkii uu isaga tagay. Intaa kadib wuxuu la xiriiray booliska markay imaadeen oo ay arkeen, waxay yiraahdeen waxa laga yaabaa inuu safar jiro, iyagana waa iska tageen. Dhowr maalin kadib, ninkii saaxiibkiis ahaa wuxuu tagay bangiga. Kadibna wuxuu weydiiyay in maalmihii ugu dambeeyay Raymond uu lacag kala baxay bangiga iyo in kale. Kadibna wuxuu ogaaday inuusan lacag kala bixin, laakiin maamulaha bangiga ayaa wuxuu u sheegay in dhowr maalin ka hor uu James u keenay check uu doonay inuu kala baxo $5,000. Check-gana waxaa ku saxiixnaa isaga, waxaana lahaa Raymond West, laakiin check-gii ay ku celiyeen oo ay ka diideen sababtoo ah waxay ka shakiyeen inuu yahay been abuur. 14 bishii 8 78 ayuu mar kale saaxiibkiis Charles wuxuu ku soo laabtay guriga. Markii uu ku soo laabtay, wuxuu arkay in guriga uu sidiisii u xiran yahay, laakiin markaan guriga wax ayaa kaga soo uray. Kadibna mar kale ayuu booliska wacay. Booliska markay imaadeen, markaan waa ay jabiyeen, kadibna waa ay galeen guriga.
markii ay galeen waxba ay ka waayeen kadibna waxay u dhageen qaybta hoose ee guriga ee basementiga la dhaho markii ay basementiga tageen waxba ay ka waayeen laakiin waxay ka heleen waxyaabo yaryar oo Raymond uu lahaa sida okiyaalihiisa oo kale kadib markii ay ka soo baxayeen ay waxay arkeen in saqafka kore ee qaybta hoose ay wax ku yaaleen kadibna waxay tageen qolka ku yaala qaybta sare wuxuu ahaa qolka maqaasiinka ama baqaarka qolka markii ay tageen waxay ugu dhex tageen meydka Raymond oo jarjaran lugihiisa iyo gacmihiisa inta la jaray ayaa meel lagu riday madaxiisana meel ayaa lagu riday inta dhexe ee jirka waxaa lagu xiray xarig kadibna waxaa loo qaaday kor ilaa la geeyay saqafka kore ee guriga qaybta dhexe xariga lagu xiray waxaa lagu qaaday birta ceelasha lagu isticmaalo kadib markii la qaaday qaybta kore ayaa lagu xiray xarigina waxaa lagu xiray meel halkaas ayuu ka laalaaday meydka inta dhexe oo dhan kadib booliskii meydkii waa ay dejiyeen meydkii waa la isku ururiyey waana laga qaaday meesha goobta markii ay baareen waxba kama aysan helin laakiin xarigga ay waxay ka heleen farihii ay ka heleen ma aysan ahayn faro dhammaystiran oo ay aqoonsan karaan laakiin waxay dhigeen kaydka laga yaabay in maalin uun ay u suurto gashay inay aqoonsadaan intaa kadib Raymond saaxiibkiis Charles ayaa wuxuu u sheegay dambibaarayaasha inuu ka shakisan yahay inuu James ka dambeeyay dilka laga yaabay inuu lacag ka xadeeyay wuxuuna u sheegay waxyaabihii uu ogaaday gaar ahaan lacagtii uu isku dayay James inuu la baxo laakiin ay suurto gali weyday intaa kadib boolisku waxay raadiyeen James markii ay heleen waxay baareen baabuurka waxay ka heleen xarig u eg xariggii meydku uu ku xiraa sidoo kale waxay fiiriyeen gunida xarigga meesha laga xiray sida loo guntay waxayna arkeen gunidii xariggii hore iyo gunida xarigga baabuurka ku jira inay isku mid yihiin oo isku eg yihiin sidoo kale waxay ka heleen baabuurka 34 jeeg oo been abuura oo dhammaantoodba la soo diiday kadib James waa la xiray waxaana lagu eedeeyay dilka Raymond West laakiin maadaama ay ku caday waayeen James waa la iska sii daayay kiiskina waa la xiray kiiskina waxa lagu soo gabagabeeyay inaan la aqoon cidii ka dambeeyay dilka sida ayuuna ku baxsaday James kadibna uu isaga tagay magaalada Kansas City oo dhan 1982 markii ay dhaceen dhacdooyinkii Tylenol markii ay ka sii daayeen TV-ga iyagoo isticmaalaya magacyada Robert iyo Nancy sababta waxay ahaayeen magacyada ay ku isticmaali jireen Chicago James iyo Leon mid ka mid ah baarayaashii kiiskii Raymond West ee 78 ayaa wuxuu arkay sawirkiisa kadibna waa uu aqoonsaday isla markiina wuxuu la xiriiray booliska magaalada Chicago wuxuuna u sheegay in magacyadooda aysan ahayn Robert iyo Nancy ee magacyadooda saxda ah ay yihiin James Lewis iyo Leon Lewis intaa kadib dambibaarayaashii kiiskii magaalada Kansas City kiiskii Raymond waxay aadeen magaalada Chicago waxayna qaadeen dhammaan cadaymihii kiiskii hore waxay u geeyeen cadaymihii baarayaashii kiiskii Tylenol intaa kadib waxay isbarbar dhigeen faro ay ka heleen warqadii loo diray shirkadda J&J iyo farihii ay ka soo heleen xariggii uu ku xiraa meydka Raymond farihii markii hore ay aqoonsan waayeen dambibaarayaashii 78 markii isbarbar dhigeen waxay noqdeen isku mid labada faraba waxaa yeeshay James Lewis bishii November 82 dib ayay shirkadda Johnson & Johnson ugu dhawaaqday inay u soo celin doonto kiniiniyadii Tylenol markaana waxay ku sameeyeen wax ka bedel caaga uu ku jiro kiniiniyada markaan waxay sameeyeen caaga qaybta dhexe markii furka laga furo ay waxay ku dhajiyeen bac aluminum ah caaga markii la xiro furkiisana waxay ku sii dhajiyeen bac kale sidaana waxay dadku ku ogaan karaan haddii bacahaas aysan ku xirayn in caaga la furay waxayna kaga digeen dadka inay isticmaalaan caag horey loo furay sababtoo ah markii hore caagaguma aysan xiraa jirin qofka waxaa u sahlaneed inuu inta caag soo dejiyo oo sameeyo kadibna uu si caadi ugu celiyo dukaanka oo caadi loo iibsado laakiin hadda maadaama ay bac ku soo xireen waxay yiraahdeen haddii bacahaas ay ka fuqsan yihiin ha isticmaalina dib ayayna u soo celiyeen kiniiniga Tylenol sababta ugu weyn waxay ahayd Tylenol xilligaa wuxuu ahaa kiniiniga xanuun baabi'iye ee ugu caansan looguna gadasho badan yahay Mareykanka oo dhan shirkadda sameeyda ee Johnson & Johnson Tylenol oo kaliya sanadkii waxaa ka soo gali jirtay in ka badan 400 oo milyan oo dollar ma uusan ahayn kiniini ay si sahlan kaga tanaasuli karaan waxay ku soo celiyeen suuqyada 13 December ugu dambeyntii James waa la soo qabtay waxaana laga soo qabtay magaalada New York isagoo jooga meel maktabada ayaa waxaa arkay qof kadibna waa uu aqoonsaday wuxuuna la xiriiray booliska markii ay soo qabteen waxay ka qaadeen waraysi isagana waa uu diiday inuu wax dil geystay ama inuu ka dambeeyay inuu sameeyo daawada kadib waxaa la soo taagay maxkamadii
maadaama cadeymo ku filan ay waayeen inuu isagu ka dambeeyay sumaynta looma qabsan kiiskii Tylenol oo waa lagu waayay kiiskaas laakiin waxay ku qabsadeen warqadii uu u diray shirkadda Johnson & Johnson warqadii laga helay farihiisa kadibna waxaa lagu xukumay 12 sano oo xabsiya sababtoo ah waxaa lagu eedeeyay inuu isku dayay inuu lacag dhaco qaab handadaadana uu ku dhaco. Do you commit the Tylenol murders? I did not. isaga markii dambiilayaashu ay weydiiyeen wuxuu u sheegay inuusan doonin inuu lacag dhaco ee kaliya uu rabay inuu baxar geliyo shirkadda Lakeside Travels oo ah shirkaddii account-ka lahayd xaaskiisana ay ka shaqay jirtay sababtuna waxay ahayd shirkaddii wuxuu go'aansaday ninkii iska lahaa inuu xiro maadaama aysan waxba ka soo baxayn markii uu xirayay bishii ugu dambeeyay wuxuu siiyay Liam Lewis check oo mushaarka ku qoran yahay laakiin check waa u shaqay waayay wuxuu ahaa bug kadibna James wuxuu ka xanaaqay wixii ninka maamulaha shirkadda Miller uu ku sameeyay xaaskiisa wuxuu yiri waxaan doonayaa inaan baxar geliyo oo aan dawladda ku diro oo kaliya wax kale kama rabin laakiin waxay ahaataba waxaa la dhigay xabsiga wuxuuna qaatay xabsiga ku qaatay 12 sano booliska iyagu waxay sii wateen baaritaankii kiisaskii Tylenol waxayna isku dayeen wax walba ay awoodaan si ay ugu cadeeyaan inuu kiisaskan isaga ka dambeeyay laakiin marna uma aysan suurto gelin inay ku cadeeyaan James inuu dilalkan ka dambeeyay sidoo kale waxay ogaadeen in sanadkii 1974 ay ka geeriyootay gabar yar James iyo xaaskiisa Liam waxa ka geeriyootay gabar yar oo lagu magacaabo Tony Ann sababta ay u geeriyootay dhaqaatiirtu waxay ku sheegeen inay wadnuhu istaageen laakiin gabadha waxaa la siiyay daawo ay sameeyay shirkadda J&J Johnson & Johnson kadibna waa ay geeriyootay dhaqaatiirta markay baaritaan ku sameeyeen kiiska waxay ku soo gabagabeeyeen inay u geeriyootay wadnaha oo istaagay sababta uu istaagana waxay ahayd waxaa xirmay mid kamid ah xididada dhiigga keena kana qaada sidaa darteed ayuu wadnuhu istaagay una geeriyootay gabadhiisa laakiin James isaga ma uusan aaminin isaga mar walba wuxuu aaminsanaa in shirkadda Johnson & Johnson ay gabadhiisa ka dishay wuxuuna ku eedeey jiray Johnson & Johnson inay ka dambeeyeen dhimashada gabadhiisa sidaa darteed laga yaabay James inuu warqadda markii uu dirayay doonayay inuu lacagta qaato sidoo kale inuu ka arguto shirkadda Johnson & Johnson oo sumcadeeda uu dhulka la galo iyo sidoo kale inuu ka arguto shirkaddii xaaskiisa ka shaqay jirtay iyo maamulaheedii Miller oo iyagana uu sumcadooda dhulka la galo booliskana uu ku diro oo uu baxar geliyo waxaa laga yaabaa James inuu doonayay inuu 3 shimbirood hal dhagax ku dilo 12 sano kadib James waa la sii daayay oo xabsiga laga sii daayay wuxuuna iska noolaaday nolol caadi ah 2004 ayaa mar kale haweeney la ahayd daris waxay ku eedeeyday inuu isku dayay inuu kufsado kadib waa la xiray laakiin markii maxkamadda la soo taagay haweeneydii waa ay diiday inay waxba sheegto waa ay diiday inay ku cadeydo inuu isku dayay inuu kufsado kadibna kiiskii oo dhan waa la riday isagana mar kale ayaa la sii daayay kadib wuxuu iska tagay magaalada Boston oo ku noolaa ilaa uu geeriyooday sanadkii hore 2023 kiiskii Tylenol 2007 ayaa mar kale dib loo furay laakiin waxba kama aysan soo bixin 2017 ayaa mar kale dib loo furay ilaa iyo maantana waxay ku hayaan baaritaan ilaa iyo maantana uma aysan suurto gelin inay ogaadaan qofkii dhabta ahaa ee ka dambeeyay kiiskan inkastoo ay u badinayaan inuu James ka dambeeyay laakiin ma jirto cid ku caday karta inuu isagu ka dambeeyay kiisaska laga yaabay maalin maalmaha kamid ah inay kiiska xaliyaan ogaadaanna qofkii saxda ahaa ee ka dambeeyay kiiska muuqaalkii maanta intaas uu ku egyahay tani kulata dambe waxaan idinkaga tagay amaana Allah